waxaan halkan isugu nimid inaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed fariinta been abuurka ah ee soo gaartay aan u cadeyno goobtan aan joogno School Buluusiya waa goob asalkeedu uu lahaa taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo Akademiyada Booliiska Generaalka ah sababaha loogu doortay in looga dhiso halkan kuliyadda ciidanka booliiska ba ay ahayd sababo keenay cimilo ahaan iyo eerida ay ku taalo oo ku fiican in tababar lagu galo baadkan iyo looga faa'iideysto badda dhinaceeda oo ciidanku tababarkooda ay adkaanshahooda iyo physically lagu dhisi karo waa sababihii 60 sano ka hor ama 60 sano ka hor loogu doortay Akademiyada Booliiska in goobtan laga dhiso burburkii kadib goobtan waxay noqotay meel dadka Soomaaliyeed ay ku aasaan dadka ka soo dhinta boqolkiiba 70 waxa aaska loogu bilaabay ciidamadii dawladihii ku meel gaarka ahaa iyo kuwii centralka ahaa ee dalka soo marayba dagaaladii lagu la jiray kooxahan qawaariijta noocyadooda kala duwanba dadkii ku soo dhintay halgamiyaashii shahiidintii ku soo dhintay dhamaantooda ku duugan goobtan waxaan saaka maqalnay in la yiri qabuurta lagala baxo meedadka cid dhahdayna ma leh meeshan taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed awood ku leh oo waardiyeeya sababta loogu wareejiyay darbigaasuna waxay ka mid tahay sugidda ammaanka goobta maadaama godka hoose ee goobtan ay ciidanku dabrid ku sameeyaan hadii jar ay ku tababartaan maadaama ay badatay dhibaatooyinka kooxaha argagixisada ay dadka la beegsadaan in la kontrolo goobta la waardiyeeyo sidee u dhici kartaa in daraadna qof lagu duugo qof dhowr bilood koor lagu duugayna ka bixiya la dhaho oo taliska booliiska dhahay ama cid walba dhahday la dhaho sidee ku dhici kartaa shalay ma hadaraad meeshan meeda yaalay qof lagu duugayay maantana waxa la sheegaa in la yiri lagala baxo wax jira maahan mana ka soo bixin taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo afkooda aan ku hadlaayo labadaba ma jirto cid tiri qabuurtan hal la faago waa qalad arimahaasu mana dhicin qof uga aasan yahay oo gartay inuu kala baxa meedkiisa xuro u yahay qof walba ehelkiisa xukuma haday dantooda ayaga gaarka ah ay qabatay inay ka baxsadaan waalidiintooda sida hadda dhacday waa loo fududeynaa ciidankuna gacanay ku siiyeen oo baxsaday meeshii ku haboon oo asaga la rabay ayuu geystay laakiin ma jiro amar ah in laga la baxo goobtan meedka lagu aasay ee muddada ku aasan mana jirto meel taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo arinta ku soo saaray way dhici kartaa goobtan waxa lagu caadeysatay dadka tuugada magaalada wax ku soo dhaca ee cabtooyda inay yimaadaan sahan dheer iyo warbixino dheer iyo baaris dheer oo la sameeyay waxa la ogaaday in goobtan ay dadka balwadaha kala duwan la habeen iyo maalin isugu yimaadaan si loo kontrolo loona xajiyo goobta waxa lagu wareejiyay derbi waxa la keenay ciidan waardiye sida saakaba dhacday oo Allah u naxariistay eheladii qaraabadii ajakis markay iimaanayeen ciidanka soo dhaweeyay waxayna ka codsadeen inay aabahooda meesha ka saartaan oo ay meel kala geystaan hore u soo go'aansanay dheen familkiya yimid waa lagu gacansiiyay ambalaastooda la soo galeen waa la caawiyay laakiin ma jirto amar taliska booliiska ka soo baxay oo dhahaaya meedadka meesha lagala baxo mana dhicin horeen uma dhici doonto warbaahinta waxaan leenahay waxa tabinaysiin xaqiiqda ku saleeya waxa tabinaysaan u raadiya fakalti xaqiiqa oo dhahaaya ereyga idinku leedihiin warbaahinada qaar maana ka filanayna waxyaabaha qaarkood ay dhacaaya ida ka filanayna maahan waxaan ku tuhmayna warbaahintu inay dad khibrad leh oo aqoon leh ku jiraan laakiin haddana falalka noocaan markay dhacaan waa idin tuhmayna waxa idinku tuhmayna in warbaahinta naftirkeeda professionalist ahaan ay wax tayo leh jirin si warbaahintu tayo u yeelato ilaaliya xaqiiqda ilaaliya taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed xarumo uu leeyahay waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed ee dadka uga aasan yahay goobtan walaal xura u tahay hadii qof uu kaaga aasan yahay aad meel ka haboon u haysato cid kugu haysata male hadii la bixinaayana waa siyaasad guud oo dawladda u degsan haday rabto ayada idinku soo wargeli doonto laakiin wararka ku tarkutaynta waxa la yiri hal baxsada meedka cid dhahdayna ma jirto cid doontaana ma jirto waxa garabkayga taagan marxuumka ajakis wiilkiisa oo asaga kamid ahaa dadkii maantay goobta meedka kala baxay laakiin historygiisa asaga idinka sheekaynaya ee sababta ku dhacday mana jirto waxa idin xaqiijinaa oo istaagan idinku xaqiijinaa
meelay dawladda amar ku soo saartay dhahaaya qabuuraha hala faago mana lagu baran mana dhicin laakiin ogaada goobtan waa goob ciidan waa ogtiin ammaanka la sugo inay qasabta in la ogaado cid soo galays inay qasabta in la ogaado wax lagu duugay naftirkooda inay qasabta sababtoo ah kiisaska dilka ah ee qarsoodiga batay ciidanka booliiska Soomaaliyeed xarun walba oo cid lagu duugi doono oo hadda qabuur ah waxa sameey doona control sababta qofka la duugay naftirkiisa meeshay ku jirta in la ogaado wuxuu u dhintay sababta uu dhintay meesha ku dhintay cid duugaysa in ehelkiis tahay waxaas dhan waa la xaqiijina mana dhici doonto goob damba oo qabri ah oo qof lisaga duugay oo anaga aan aqbalnay insha Allah si looga hortago arimaas kiisaska qarsoon dilalka qarsoon ee magaalada ka dhacay si aan uga hortagno waxa isla qaadanay inaan sameeyno goob walba dad lagu aasay qofkaad aasaysa hadaadan wadin warqad cadeynaysa sababta uu dhintay iyo ehelkiis inaad tahay inaad iska duugi karin dhibaatada dadkeena ka soo gaartay waa ka warhaysa media waa la socotay waxaan jeclahay marxuum ajakis wiilkiisa inuu kelimad ka yiraahdo oo xaqiijiyo sababta ku kaliftay inuu kala baxo aabihiisa goobtan oo asagana aad wareysan kartaan haye ku soo dhaw